agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Maxamed Cabdi Xergeeye oo warbaahinta la wadaagayay warbixinta maalinlaha ee xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in 48 saacadood ee u dambeeyay 29 ruux laga helay xanuunka COVID-19 waa kan agaasimaha oo ka warbixinaya xaaladihii u dambeeyay xanuunka 48 saacadood ee u dambeeyay waayo waxa ku jirtay maalin Jimcaha waxa baaritaan loo sameeyay 110 qof 110 qof ee baaritaanka loo sameeyay waxa xanuunka laga helay 29 qof 29 qof oo isugu jira 23 rag ah iyo 6 haween ah 29 qof ee laga helay 24 qof oo kamid ihi waxa ay degan yihiin magaalada Hargeysa halka 5 qof oo kamid ihina ay degan yihiin magaalada Burco dadka xanuunka laga helay sidii aynu horeba dadka ugu sheegi jirnay da'dooda waxay u dhaxaysaa da'da 20 ilaa 29 jir waa 11 qof halka da'da 30 ilaa 39 jirna ay 8 qof tahay 40 ilaa 49 jir waa 2 qof 50 ilaa 59 jirna waa 5 qof 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof 90 ilaa 99 jirna waa 1 qof dadka xanuunka ka bogsaday ayaa iyaguna kor u kacaya iyada oo aynu marayno 3 qof halka dhimashadu ay 48 saacadood u dambeeyay ay tahay 1 qof oo halka qofna uu yahay 1 qof oo dumar ah oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 19 qof COVID-19 loo sameeyay qaab ay u helaan oksijiinta iyada oo isbitaalada Boorama Hargeysa ku yaala Berbera Burco intaas oo ah inta ay dadku yaalaan aanu sameynay qaab aan ku gaarsiino oksijiinta iyada oo kii ugu dambeeyay oo ah ka Berbera hadda aan oksijiinta halkan uga dirayno haddii la yiraahdo maanta iyada oo marka ay oksijiinta loo diray ay si dhamaanaysa la soo celinayo oo la buuxinayo oo ay kharashka iyo lacagta ku baxaysana ay qabto ama ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo qaranka uga mas'uula hawlahan waxa kaloo iyaduna sideedii noogu socota hawlihii kale ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay waday ee ahayd dhinaca ilaaleynta iyo surveillance-ka iyo dhinaca contact tracing-ka oo ah dadka xanuunka laga helo sidii looga daba tagi lahaa dadkii ay la kulmeen hawshaasina tiimamkii loo diray si wacan ayay u wadaan iyada oo dadkan aynu shaybaarka u sameynayna imika badidoodu ay tahay dad ama la kulmay dad hore ama dhinaca call centerka laga soo gudbiyay ama calaamadihii xanuunkaasi yeeshay oo iyagu si gooniya isku intay iskaga shikiyeen intay qaateen wacyigelintii u yimid Axmed Dool Somali TV Hargeysa